waxaa fadhiya taliyaha ciidamada booliiska, waxaa fadhiya taliyaha gobolka Banaadir, waxaa fadhiya taliyaasha degmooyinka nabad sugidda, waxaa fadhiya taliyaasha afarta qaybood ee nabad sugidda, waxaa fadhiya saraakiil badan oo amniga ka shaqeysa iyo guddoomiyaasha degmooyinkii guddoomiye ku-xigeenadii gobolka Banaadir. aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta noo timaadid inkastoo aan ku talagelin oo fadhi lagugu talagalay uusan u habaysnayn, laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaad imaashada surprise-ka aad markasta samaysid. meeshan waxaa looga hadlahayaa wixii xal dhacay, taniya xalay fadhiga looma kala kicin ilaa ay kowdiya barkii baan ku kala tagnay. taliyaha ciidanka booliiska, taliyaha militariga, taliyaha nabad sugidda, wasiirka amniga qaranka iyo taliyaasha qaybaha iyo taliyaasha operationka iyo taliyaha gobolka Banaadir. saakanay halkan waxaa la bilaabay 9kii ilaa ay haddana xog baa la isdhaafsanahay wixii dhacay iyo wixii ka dhacay xalay magaalada iyo habeen hore. marka waxaan ku soo dhaweynayaa wixii faahfaahin ah wasiirka amniga qaranka mudane Cabdikariim faliya tafadal. dad ciidan iyo askar intaba meeshan ayay fadhiyaan. ujeedaduna waxay ahayd maalmahan dambe aad moodo in xaaladda nabadgelyada iyo duruufaha nabadgelyo ee magaalada ee xoogaa wax ku soo kordheen, gaar ahaan dhacdooyinkii labadii habeen ee la soo dhaafay in laga xisaabtamo waxa ay ku dhaceen iyo sababtay u dhaceen iyo waxa jira in si dhab ah looga xisaabtamo. booliska lala xisaabtamo, nabad sugidda lala xisaabtamo, degmooyinka lala xisaabtamo, gobolka ilaa iyo heer wasaarad intaba in la xisaabtamo. runtii intii saaki aan fadhinay xisaabtan dhab ah ayaa dhacay. waxaan rajeynayaa xisaabtankaas inuu ka soo bixi doono natiijooyin wax ku ool ah oo isugu jirta laba qaybood. qayb waxay tahay arrimahaas dhacay in ay meel fuulaan oo meel la'aan aysan noqon oo mas'uuliyaddeedu ay cid qaado, iyo arrinta labaad waa in qorshayaal dhab ah oo lagu damaano qaadayo magaalada Muqdisho amnigeeda 100% in gacanta dawladda ay soo gasho la soo celiyo. labadaas arrimood ayaa ujeedada kulanka uu ahaa. rajo weyn baan waxaan ka qabnaa insha Allah taala in guulo waaweyn laga gaari doono, in wixii xal dhacay wax la mid ah ay soo laalaaban doonin. waxaan rabnaa marka annagoo ku faraxsan ka soo qaybgalka nagala soo qayb gashay iyo imaatinka aad noo timid, talooyinkaaga iyo tawjiihaadkaaga adigoo ah hay'adda fulinta ee dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shakhsigii ugu sareeyay inaad nasiiso guud ahaan gaar ahaan hay'adaha amniga ku howlan aad siiso. waa hubaa wixii ka dhacay magaalada Muqdisho labadii maalmood la soo dhaafay, labadii habeen la soo dhaafina aad iyo aad ay ku saameeyeen, aadna uga xumaatay. waxaan qabaa marka inaad wax alla wixii talo iyo tusaaleyn iyo awaamiir intaba inaad maaragtay ka bixin doontid. annagana waxaan diyaar u nahay wax alla wixii dhinacaaga ka soo fula oo ama talooyin awaamiir intaba anoo ku hadlaya magaca inta fadhida inaan qaadano oo dusha u ridnaan maaragtay aan ka ballan qaadaya mudan ra'iisul wasaare ku soo dhaweey. aad baan horta ugu faraxsanahay marka koobaad inaan fursad u helo inaan intiinaan oo ah mas'uuliyiintii qaranka xagga amniga iyo mas'uuliyiintii gobolka Banaadir, guddoomiyayaashii iyo maamuladii degmooyinka gobolka Banaadir kulankan ay isugu yimaadeen inaan fursad idin helo inaan idin imaado oo aan idinla qaybsado dareenkayga. horta taas aad baan ugu faraxsanahay. runtii kulankan ma aha kulan aan ku xafladaynayno. waa fiicnaan lahayd inuu yahay kulan aan ku xafladaynayno annagoo guulo gaaray oo nabad u fadhina, aad bay u fiicnaan lahayd. laakiin maanta ma aha. waa kulan aan isugu nimid runtii inaan cabiro dareenka aad iyo aad u tiiraanyada badan ee ah in amnigeenu wax si ka yihiin inaan cabiro.
labadii habeenoo la soo dhaafay dadkeenna waxaa la geliyey cabsi iyo argagax baa laga geliyey. waxaa lagu soo tuuray hoobiyayaal, waxaa lagu weeraray bambooyin. arrintaas waxay astaan u tahay in wax qabad dhab ah aynu u baahan nahay. cadowgu wuxuu ogaaday daldaloollo inay jiraan, ayuu cadowgu ogaaday. taa weeye waxa dhaqaajisay. hadday og yihiin daldaloollo inaysan jirin, cadowgu ma dhaqaaqeen, umana hawoodeen inuu falalkii uu sameeyey labadii habeena lasoo dhaafay uu sameeyo. runtii arrintaas waa arrin aan ka xunnahay. dadkeennu xaq uma leh iyadoo ay joogto xukuumad ay doorteen, iyadoo ay joogaan intaan oo maamul iyo amni iyo ciidan ah. dadkeennu ma filayaan, xaqna uma leh inay runtii cabsi ku noolaadaan oo guryahooda ay ka soo bixi waayaan oo cabsi ay ku noolaadaan. mas-uuliyaddaas xukuumaddaa iskale, mas-uuliyaddaas inteenan halkaa fadhidaa iskale. dadkuna waa nala kula xisaabtamayaa, xukuumadduna way kula xisaabtamaysaa. inta iyada mas-uulka u ah way kula xisaabtamaysaa. waxaa weeye wixii xalay iyo habeen hore dhacay jawaab cad baynu u baahan nahay sida ay ku dhaceen. waxa keenay inay dhacaan jawaab cad baynu u baahan. waxaan u malaynayaa in loo dhan yahay fadhigan oo dadkii jawaabta u xil saaraa inay bixiyaan inay u dhan yihiin. waxaa kaloo meesha yaalla, waxaanu rabnaa waxaas inaysan mar damba dhicin. intaanu inay qorshayso oo ay xukuumadda u soo gudbiso qorshe cad oo dhab ah oo fulaya, oo ah in laga hortegi karo lana joojin karo falal noocaasa inaysan dib u dhicin. dadku jawaab buu naga sugayaa, dadweynuhu jawaab bay naga sugayaan. dadweynuhu waxay naga sugayaan in meesha xukuumad iyo ciidan ay joogaan ka jawaabi kara markuu cadowgu soo weeraro ummadda. waxay naga sugayaan inay arkaan fal dhab ah oo dhacay, ma aha hadal, ma aha qorshe waraaq ku qoran. fal dhab ah oo dhacay oo markaa ay ku seexan karaan oo ay oran karaan dadkii mas-uulka idiin ahaa, dadkii mas-uulka ka ahaa amnigiina iyo maamulkiina way shaqaynayaan, wixii aad doonayseenna way qabanayaan. arrintaas marka waxaan u xil saarayaa dhammaan inta halkan fadhida ee ah madaxda gobolka Banaadir, maamuladiisa, maamulka guddoonka gobolka iyo guddoomiyeyaasha iyo wasaaradda amniga iyo taliyaasha ciidanka heer kastaba ha noqdeen, in arrintaas jawaab cad laga keeno. xisaabta wasiirku uu sheegayna xisaab xirkeedii naloo soo gudbiyo oo ay noo muuqato meesha arrintu ka hadlaysan tahay. cidda mas-uulka ka ah ama hay-ad ha noqoto ama qof ha noqdo, cidda mas-uulka ka ah hawshii in sidii la rabay aan loo qaban oo markaa cadowgu ka faa'iidaysto. jawaab cad ayaan ka rabnaa wasiir, adiga iyo inta kula shaqaysa iyo guddoonka gobolka runtii. taas waxaa xiga iyadoo road map cad aad ka keenaysaan
ummadda kalsooni gelin karaa, xukuumaddana kalsooni gelin karaa inaanay taas dib u dhacayn oo ay jirto hawl la qabanayo oo keenaysa in arrimahaas laga hortegi karo. runtii amni darrada hadda aynu tabayno kuma eka oo keliya wixii xalayto dhacay iyo wixii habeen hore dhacay. waad la socotaan suuqa bakaaraha in iyadana beryahan dhac loo geysanayay goobo ka tirsan goobaha ganacsiga, taasoo khalkhal ku abuureysa howlaha ganacsiga ee ummadeennu noloshiisa ay ku xiran tahay. suuqa bakaaraha waad garanaysaan ahmiyadda uu u leeyahay dalkeena guud ahaan, gaar ahaan magaalada muqdisho. waxaan u malaynayaa falalkaas amni darrada ah inkastoo kuwii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha inaga soo gaarayeen, waa dhici karaa suuqyada kalena inay ka jiraan. marka hawsha argagixisada iyo howlaha kale ee amni darrada ee lagula kacahayo hantida dadweynaha waxaa weeyaan waa waxa aynu u xil saaranahay dowlad ahaan, gobol ahaan iyo ciidanka amniga ama nabadda sugaya aynu u xil saaranahay inaynu ka hortagno. waxaan ayadana idin farayaa in arrintaas si dhaba looga howlgalo, natiijana laga dhaliyo. howlgal aan natiijo lahayn waxba micnaa male. waxaa weeyaan natiijadu waa inay joogsadaan falalkaas, waa inay baqaan dadka falalkaas geysanaya, waa in la ciqaabo dadka falalkaas geysanaya, waa in inta la soo qabqabto si wanaagsan oo adag loo ciqaabo si aan loogu dayan ayaguna ay markaa meesha uga baxaan. marka arrintai sukaaya keentay waa arrintaa waxyaabaha ka dhacayay xamar